meesha waxaa ka dhacday musiibo sidaad xalay wada ogeydeen shacabka Soomaaliyeed ee caalamka ku nool oo dhan media xalay waxa haysatay gabadhaas oo 12 sano jira laba jir ah xanuunka autism ka qabtay la waayay aabaheed soo kaxeeyay iyada iyo wiil weyn oo walaalkeeda haradaas biyaha ee idaanana meedkeedii laga helay horta ciidamada nabadgelyada fire-ka iyo dhakhaatiirta xalay gobolka Minnesota lagama seexanin waxa la isku tagay xaruntii waxa jira sideedaba sharci wadanka Mareykanka la bilaabay waqtigii uu haystay madaxweyne Clinton 2002 sharcigaas markii la bilaabay ayaa waan idin daari doonaa 2003 waxa hirgeliyay oo qalinka ku duugay madaxweyne Bush sharcigaasi muxuu ahaa sharcigaasi wuxuu ahaa Amber Alert Amber Alert waa maxay waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed waxyaalo badan u iftiimiyo Amber Alert waa alert soo dhacaya marka ilmo laxado wadanka oo macnaheedu yahay qof kasta oo telefoonkiisa ugu soo dhacayo si wadankii oo dhan loo ogeysiiyo in ilmo laga xaday gobolka noocaas ilmo saas ahaa si qofkaas ilmaha xaday aan ugu dhiiranin ilmihii inuu u gudbiyo state kale ula gudbo oo uu baqo sharcigaas waxa laga dhigay federal Amber hadaba maxay ahayd Amber waxay ahayd gabar yar oo 6 sano jirta Arlington Texas iyadoo oo banaanka ku ciyaaraysa 1997 inay ahayd ayaan jeclahay magaceedu Amber buu ahaa iyadoo banaanka ku ciyaaraysa ayaa nin lagu sheegay inuu cadaan yahay waa Arlington Texas u dafay maalmo kadib ilmihii yaraa oo meeyda ayaa la helay ilmihii yaraa oo meeyda markii la helay hooyadeed waxa ay qaaday dacwad aad iyo aad u weyn oo ku socota dhammaan dawladda federaalka ee wadanka Mareykanka waxayna codsatay in la sameeyo alert marka ilmo la xado la geliyo oo la yiraahdo ilmahaas ayaa la xaday oo telefoonada ku soo dhaca magaceedu Amber buu ahaa arrintan waxay dhacday 1996 bay ahayd 6 sano jirtay iyadaana loogu magac daray alarmigaas Amber aad aragteen xalay gabadha yar ee Soomaaliyeed ee 2 sano jira gobolka Minnesota markii arrintu dhacday ma la gelin dad badan oo iyagu waxa jira ka aan cilmi u lahayn arrimahan oo ogeyd laakiin dadka qaar markii aan isweydiinay xalay markay ahayd koodiya barkii ayaa aniga online Facebook ka ah waxa wada hadalay nin surgeon oo ciidankii booliiska ahaa oo aan rabin inaan magaciisa halkan ka sheego aadna aan iskugu dhownahay oo goobta ka howlgalay waxaan weydiiyay waxaan ku yiri taliye بعدما gabar yar oo 2 sano jirta oo autism la yahay way Amberka loo yeerin waaye ma dadka kale cadaanka ah loo yeeray wuxuu yiri Cabbaxakiinow xaaladdu saas maaha already waxaan ognahay uu dhahay ilmaha yar in aan la xadin laakiin biyahan uu ku dhacay suugu dhacayba eragaas ii raaci ugu dhacayba uu ku dhacay hadda waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed horta markii hore aan ka jaahil bixiyo Amber Alert Soomaalidu dulqaad badan bayna lahayn horta alertiga Amber la yiraahdo Amber Alert waxa lagu magac daray gabadhan 1996 ayay arintuna ay dhacday January 13 waa sharci federaal oo hirgeliyay la bilaabay waqtigii madaxweyne Clinton waxaana qalinka ku duugay 2003 madaxweyne Bush marka ilmo la xado waxa la diray alarmigaas qof walba la ogeysiinaya laakiin gabadha Soomaaliyeed ee 2 sano jirta xalay lama dirin maxay markaa sababtu ahayd
markii aan wada hadalay ninka taliyaha ahaa booliska ahaa aan weydiiyey arintaasi waxaan arkay isagoo Facebook online uu yahay uu ku jiro laakiin shaqadii uu ku jiro kabacdina message baan u diray waxaan ku yiri taliye may hawshaad ku jirtaa may soo wici kartaa way soo wacay arintii ugu horeysan weydiiyay arintaan ay ahayd waxaan ku yiri kubaadaan arkin community-ga Amber Alert marka maxay ilmaha Soomaaliyeed uu kaga duwan yahay ilmaha kale ajaanibka ah wuxuu yiri Cabdixakiin waarun waa su'aal fiican laakiin already xoga badan ayaan haynaa hadaan nahay booliskii xoga badan oo adigu aan rabin hadda halkan inaan ka iraahdo okay Maria Sesi waa ku balogaya mardhow insha Allah marka wuxuu yiri xoga badan buu ila wadaagay oo aan rabin hadda halkan inaan ka sheego wuxuu yiri Amber Alert waxa loogu talagalay ilmaha la xado laakiin ilmahan Soomaaliyeed lama xadi arimo badan oo qasan baa jira oo aan hadda rabin inaan halkan idin ka magacaabo idin ka sheego marka wuxuu already ilmahaasi wuu dhintay Cabdixakiin waxaan ku yiri taliye see ayaad arintan ku ogtaa wuxuu yiri anaa ku garanti siinaya ilaa iyo barina maydka waa la helayaa ilaa iyo barito maydka waa la helayaa waxaana laga soo saarayaa harada biyaha ninaanu aad isku wareysano ahaa marka wuxuu iga wareystay aqoon intee leeg ayaan u leeyahay family-ga bacdama aan ahay nin community-ga aad looga yaqaano oo media ku jira waxaan taliye family-ga aqoon xooga oo nu leeyahay ma jirto laakiin waxyaalo ayaan soo gaargaaray oo hadda maqbaqlayaa marka xaaladdu say kula tahay adiga xabayaan war idinku badinin arin aan aad uga yaabay ayuu taliyuhu ila wadaagay okay so iska yaa mid kale soo samayso arin aan aad iyo aad uga yaabay ayuu taliyuhu ila wadaagay waxa uu sheegay in reerku ay deganaayeen symbol xaafada la yiraahdo all the way down aabahu oo ilmaha keenay ideena ciidamada booliska qaybta dambi baaridu waxa interview la yeesheen aabihii dhowr hadal oo kala duwan iyo waxaas adigu hadda gacanta lagu hayaa ummadda Soomaaliyeed in wax la isku sheego oo la isla taliyo yaani waxun maaha dad badan baa hadallada qaar dhibsan doona oo oraraya Cabdixakiin muxuu arrimaha noocaan ah saas iyo saas iyo saas yaani dadku yaani hadii wax la isku sheego maaha maaha yaani in wax la khaldayo okay qofkan Jasmine waad iska yaaci kartaa saaxiibada qaaliga maaha in yaani wax la dhaleecaynayo laakiin waxa la rabaa in khalad badan oo waalidiinta Soomaaliyeed ay leeyihiin la saxo family-ga waxa jira family barabaleyn xoogaa ah oo u dhaxeeya hooyada iyo aabaha hooyada iyo aabaha u dhaxeeyay marka gabadha umul bay ahayd dad badan oo Soomaaliyeed baa waxay soo qorayaan hooyadu snapchat ay ku mashquulsanayd iyadu ma wadin ilmaha taas inaan idinka jaahil bixiyo ayaad u baahantiin hooyada Soomaaliyeed ilmaha may wadin hooyadu uur bay leedahay ilmaha waxa waday aabihii dhalay jeeja iska raaxayso ilmaha aabihii dhalay ayaa waday oo soo kaxeeyay dadka horta mid baan rabaa inaan idinka afeef dhigto dadka meeshaan dhahaya yaan wax laga hadlin yaa la sheegin يعني معناه ما ها إن أن فاملي تعصي وطالو أن دبعتينه يعني جس وجوبابه يوحي جرا إن لا يسكت شيء الصومالي ده كم دام فرفريستا الصومالي ده فرفريستا محمد وأمول وابن شيء محمد وأمول باند هاي وابن شيء ريمانس إسكان النسائنا هذا عليه دجاه هذا فرادي الاختلاط بانتن الاختر كدجاه هاي يدوم يسمون دين آبها وذي
gacan saarna hooyada oo uur leh aabbuhu uu u geystay. marka su'aalihii aabbaha la weydiiyey waxa weeye see ilmo yar oo autism ah iska ilow ilmo yar oo autism ah oo 2 sano jira ilmay kale ayaan soo kaajisiinayaa oo aan muqsushii geynayaa oo aan 5 daqiiqo ku maqnaa yacni arrin yara aad looga yara maxaa ahayd. okay arrintaas war jiraa backaaro iman laakiin murugada qoyskaas waa la qaybsanaya in wax la sheeganaya la dhibsani. haddaba maxaa jira dayac intee leeg ayaa waalidiinta Soomaaliyeed ku jira. sideedaba dadkan cadaankaynu wadankan la joogno ilmaha marka la soo kaxaynayo oo la keenayo harada biyaha qoyska cadaankii hal ilmo ka badan hadday haystaan ma soo kaxeeyaan ilmahooda oo haradaas ma keenaan haddii ayna la soconin qofka gaardiyaanka ah ama shaqaalihii u shaqaynaya ama ilmaha xanuunsanaya qofkii ku qornaa aanu la socnayn ma yimaadaan meeshaasi. qoysaska Soomaaliyeed hooyooyinka iyo aabbayaashaba dhibaatada jirta waxay tahay 5 caruura 6 caruura ayay soo kaxaynayaan oo waxay keenayaan haradii biyaha. waxaan rabaa inaan idinla wadaago marka ilmaha meeshaan la keenayo hooyadii qaarkood waxay galayaan Snapchat aabbayaashii qaarkoodna waxay galayaan taleefanno iyaga oo siyaasadii Soomaaliya ka hadlaya. waxaa jira qalab loogu talagalay caruurta oo Amazon lagu iibiyo marka ilmahaaga aad baaga keenaysid oo kale xarkahaas ayaa jira oo ilmihii lagu xirayo lagu haynayo. xarkahaas ayaa jira oo ilmihii lagu xirayo oo lagu hadlaynayo. okay waalidiinta Soomaaliyeed marna ma sameeyaan. tusaale hadda hooyadaasi harabiyeed bay joogtaa ilmaheedii ayay wadaa waxa ku xidhanna waad u jeedaa xarigaasaa ugu xidhan. xarigaas ayaa ugu xidhan. ilmaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed markay ilmihii leega geynayaan ay kaxaynayaan ilmihii hal ilmood ma aha 5 ilmood ayay hooyadii soo kaxaynaysaa. waxaa laga yaabaa aabbihii inuu ku furay ayaa laga yaabaa 5 ilmood bay hooyadii soo kaxaynaysaa. 5 ilmood hooyadii markay soo kaxayso ma wadata BCA mid ka mid caruurtii hadda ilmahan yar oo kale oo dhintay oo 2 sano jira autism buu ahaa. autism markuu ahaa dawladdu waxay u offer garaysay oo siisay saacado qof haya oo dhaqaaleeya oo ka war haya. qofkaasi wuxuu xaq u leeyahay ilmahaas autismka ama disability-ga marka la keenayo for fun loo soo kaxaynayo oo banaanka la keenayo in ilmihii qofkii shaqaalaha ay dawladdu lacagta ku siinaysa uu soo raaco. ma soo raacayo. hooyadii oo depression iskaga furan yahay oo dhibaato hayso oo ama ninkii isdileen ama ninkii Afrika aaday oo naa kala guursaday ama aabbihii oo isaga laftiisii depression iska haysto oo biilal ku taagan labadooda mid baa soo kaxaynaya. hooyadii waxay isticmaalaysaa ay ku mashquulaysaa aaladii Snapchat-ka si ay maanta u tusto hooyooyin kale ugu faanto in ilmaheedii ay keentay meel baaga ama leega oo ay ku jiraan halkan aan raaxaysananaa bay leedahay. waxaa laga yaabaa mid ka mid inuu siibto oo biyahaas ku dhaco. aabbihii waxaa laga yaabaa markuu halkan keeno isagu ma duubayo Snapchat oo cilada ragga Soomaaliyeed ay leeyihiin iyagu taamaha iyagu waxay leeyihiin inay telefoonka qabsadaan baarlamaankii maanta ma fuliyay wasiir hebel maanta maxaa la yiri codayntii maxaa la yiri maamul goboleedkeena iyo qabiilkeeni muxuu ahaa intuu halka ku jiray ayaa ilmihii siibtay oo wuxuu ku dhacay wabigii. dhimasho badan ayaa ilmaha Soomaaliyeed kaga dhacday xarumaha biyaha ee leegaga
la iskugu yimaado caruuraha Soomaaliyeed la keena dhimasho badan ayaa ka dhacday gobolkan Minnesota xarumaha swimming poolka ee lagu dabaasho dhimasho badan ayaa ka dhacday intuba waxay ku yimaadeen mas'uuliyad darro iyo aqoon darro xagga waalidka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota degan waa in lagu wacyi geliyo dhowr arrimood mid waa mid ilma xanuunsanaya oo autism oo SSI qaata ama dawladdu ay ku bixiso dhaqaale waxa uu xaq u leeyahay PCA personal care assistant ayuu xaq u leeyahay personal care assistant ka uu xaq u leeyahay waa inuu u soo raaco goobtii ilmahaas fanka loogu geeyay ma aha ilmihii in guriyaha lagu hayo waa sax waa inaad barnaamij u soo saartay laakiin waa in waalidkii ay lacagtii dawladdu ilmahan ugu tala gashay la geliyo oo يعني سيفتي قدنا لقى تحضروا حركان المها اللي بحدا يا معها حركة قيمة بدن $16 هدا يبضته بل إيه هدا هو يلا الصومالية $16 هدا يبضته أوكي ما أقدر قرأي سريان ما سمعنا يان هو يبي لبا أي كسور السجارة يريحسه صدق كلامنا مد بالله ده هيك عن تقصه واحد تجي مالين عيدة مول في أمريكا waxyaalaha aan ku arkay waxyaalo aan aad uga naxay ayay ahaayeen run ahaantii waxaan arkay hooyo Soomaaliyeed oo 7 caruur wadata 4 kamid ayaa autism afarta laba kamidi waliba waa kuwa khatarta ah ee cararaya yaan la qaban karin aaba lama socon adeer lama socon abtina lama socon halka ay ku xidhisay iska dhaaf marba dhinac bay u boodisay ilma yar gabar yar oo jirta 14 sano ayaa caawinaysa waxay maalinta ciidda munaasabada farxadda doonaysay inay u timaado ay la wadaagto dadkaas laakiin iyada lafteedu khalad bay ku jirtay oo ilmahan qofkii la hayay shaqaalaha waxay xaq u leedahay ee dawladdu ku bay gareynaysay $20 ayaa saacadii lagu siinayaa $20 by an hour bay ku shaqeynayaan qofka ilmaha haynaya wuxuu xaq u leeyahay inuu soo raaco meeshii la yimaado meelaha biyaha ah ee waalidiinta Soomaaliyeed caruuraha geeyaan dayac badan ayaa Soomaali community Minnesota ka jira waxaana arki doontaan maanta markaan meel igaga qorto Soomaaliyeed dad badan ayaa waxay ka gubtaan runta aan sheegayo dad badan ayaa waxa dhibto oo falaar ku noqota Cabdi Xakiin muxuu waxaan u iftiiminayaa dhimashada gabadheenan yar ee 2 sano jirta aad baan uga xunnahay caloosha naga gubatay waa wax musiibo ku dhacday community-geeni laakiin waxa loo baahan yahay Somali community Minnesota oo maqli doontaan in ilmo badan oo Soomaaliyeed ay harooyinka biyaha iyo meelaha swimmingka ay ku dhiman doonaan number 1 hooyadii dabaashi ma taqaano oo maysan soo qaadan tareerin dabaashi ilmeedii haddii masiibo ku dhacdo in ay ka boodi karto oo biyi kala soo bixi karto maysan soo qaadan tababarka noocaasa boqol stress baa ku furan Afrika laga soo wacaya ninkiiba Afrika aaday naakar uu guursaday ama mid kale halkan qumbasi ku qaba iyadiiba isku buuqsan waalidiinta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waxa loo baahan yahay wacyi gelin in la sameeyo oo loo sameeyo waalidiinta marka ilmaha soo keenayaan xarumaha haraha biyaha iyo meelaha swimming poolka ee lagu dabaasho gaaladan aynu la joogno dadkan cadaanka ahi hal ilma ka badan haday wataan ma keenaan goobta haday laba wataan oo fiirsada haday laba wataan waxa la socdo qofkii guriga uga shaqeynayay ama haduu ilmahaasi ilma disability aha qofkii ku qornaa ayaa la socdo arimaha noocaana Soomaalida waalidiinta aabba iyo hooyada waa in arintan laga taxadaro hooyada haday ninkii kala tageen oo ilmihii lagu dayacay ehel ayay leedahay oo ka dhalatay qof aan ehel lahayn ma jiro waa in ehelkeedu soo raaca hadii ilmahan xanuunsanayo tusaale gabadhan yar xalay biyaha ku dhacday waxay ahayd personal care assistant inuu la socdo ayay xaq ahay maanta qofkaasi tarabal ayuu ku jiraa xagga dawladda 100% saan wadkayga u hubo ayaan u hubaa sharciga iyo lowga si fiican baan u aqaanaa waa la weydiinayaa su'aalo xataa waxaa dhici karta in maanta ama shalay uu warqadihii gabadhaas agency gabadhaas ku jiray uu diray oo biil gareeyay
taas waaba mid dhici kartaba wayna dhacdo oo Minnesota ayaa waxa ka dhacday in qof dhintay la biil gareeyay qofkii lagu biil gareeyay xabsi uu ku jiray shaqaalihi taas ka dhacday Minnesota marka ummadda Soomaaliyeed ee Minnesota degan waalidiinto waxa weeye waa in wacyigelin iyo baraarujin lagu sameeyo waalidiinta Soomaaliyeed ee ilmahooda keenaya harooyinka biyaha iyo meelaha swimming poolka ah ee lagu dabaasho hooyadu ma handal garayn karto mana qaban karto hal ilmo ka badan marka ay timaado inay ilmihii banaanka u kaxayso aabuhu sidoo kale ma qaban karo mana handal garayn karo hal ilmood ka badan ilmuhu hadday laba gaadhaan waa in labadii waalid ay la socdaan ama uu la socdaa qof faamiliga ama qof shaqaalaha oo markaa u shaqaynaya waa in la dalbado oo waalidiinta Soomaaliyeed ay soo qaataan xarkahan caruuraha lagu xidho marka la geynayo swimmingka waryaala yani dhagihiina furta in wax la isku sheega ma xuma khaladka waa laysa saxa maqaadiirtu waa dhacdaa qadartu waa dhacdaa qadarta ilaahay way dhacdaa ma in qadarta ka soo horjeeda ma maxay ku dhacday laakiin waxa loo baahan yahay taxadar xarkahaas waa inaad dalbataan waalidiinta Soomaaliyeed waa inay dalbadaan waa inay xarkahaasi dalbadaan waa in state-ka la weydiiyo budget yaa jira budget baa soo dhacay lacag badan baa yaala qasnadaha dawladda ku jira inta lagu cararay arrimo kale la raadinayo waa in la raadiyo organization la sameeyo lagu wacyigelinayo waalidiinta Soomaaliyeed in ilmaha حتى waxa laga yaabaa xarkaha noocaan iyo waxa lagu xilxilaayo ilmaha marka fanka la geynayo in dawladdu state ayba soo approve gareeyaan state kan Minnesota waa barwaaqo halkaas uu joogaa wax walba dadka waa loo ogol yahay everything waa loo ogol yahay waxa laga yaabaa in ganacsi halka ka soo baxo oo la yiraahdo xarkihii la gadayay iyo ilmaha marka la geynayay waaba leeydiin approve gareeyay agency noocaas furta dayac badan ayaa jira waalidiinta Soomaaliyeed ee Minnesota hooyooyinku qaarkood iyadoo xitaa dabaal aqoonin musiibooyinka aynu ka badbaadnay ee gobolkan Minnesota ka dhici lahaa bay ahayd iyagoo qaarkood dabaal aqoonin oo waxay yaqaanaan ay jirin ayaad arkayseen in Fox News ay ka hadlayeen in doomihii la raacayay ay ahaayeen doomo aan register garaysnayn doomo aan dayactirnayn doomo aan inspection soo marin doomo aan insurance lahayn واسكودا بوحيين هوينكي Soomaaliyeed qaarkood halis bay ku galeen haday marka dhici lahayd oo dhiman lahayd imise guri ayaa baabi'i lahaa oo Soomaaliyeed imise caruura oo Soomaaliyeed ayaa rajo noqon lahayd Soomaalida Minnesota wacyigelinta waa loo baahan yahay runtura dadka yaani dhibin runta lama dhibsado waxa weeyaan meediyaha hala isku sheego wixii khaldan wixii saxdan hala isku taageero arintan hadda aan ka hadlayo maanta waa very important ay community u tahay waxay u tahay in la sameeyo in caruuraha marka la soo kaxaynayo xarkahaas lagu xidho si ilmuhu hadduu dhaqaaqo aad u dareento ilmuhu inuu dhaqaaqay see ayaa caqligaaga iyo garaadkaagu kuu siinaya ilmo 2 sano ama 3 sano jira intaad meel harabiyood keentid oo yaxaas ku jiro oo balaayo ku jirto oo cadaan ilmihii dafi karo intaad koonahaas kale istaagtid iska dhaaf sometimes adigoo taagan Mareykan adigoo taagan oo dukaan ku jira ayaa ilmahaaga la dafaya waxyaalaha Mareykan ka dhacay kamid ah waxyaalaha America ka dhacay kamid ah miyaynu isku diidanahay seemarka ilmo adigoo 4 ilmood wada oo qaarkood xanuunsan yihiin inta aad keentid meel banaan ah oo leeg ah aad u sii deynaysaa qaar ka mida oo leedahay maanta halkan ay ka shidan tahay waxa laga yaabaa hooyadani markay Snapchat-ka ku jirtay isma laha wax xume oo waxay isleedahay heblaayo kale oo gurigii joogta ugu faano iska hooyo fiican baata hooyada ma hooyo fiican alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay uu naxariistaaniga hooyaday waxay isleedahay tus hooyooyinka inaad maanta hooyo fiican tahay ilmaha iyo halkan aan keenay waa baashaalaya waa raaxaysanaya laakiin ninku waxa laga yaabaa markuu soo kaxay isagoon inuu Soomaali baarlamaankii ma la bedelay madaxweynihii ma la bedelay maanta mooshinkii ma la keeno saas iyo saas walaalaha Soomaaliyeed ee gobolkan degano aynu iswacyi galino arimahaani waa arimo soo noqnoqday caruuro badan oo Soomaaliyeed baa swimming pool ku dhintay 2 bilood 3 bilood ka hor bay ahayd markii ilmo Soomaaliyeed uu ku dhintay swimming pool
المكالة أيا دنتي والمين صدحات و4 months كويس إن كجرنا 4 months كويس أيوة المين صدحات مريا وكسي بدنان دونتا وحنا ويسيس عن دونا لكن وخلت السؤال مادة فيريا 1996 أمبر قبل أيري أمبر اللحظي أرلينتون تكساس waxay xaditaankeedii waalidkeed uu ku soo kordhiyay wadankii Mareykanka in la sameeyo alertiga ah Amber Alert oo marka ilmo la xado lagu sheegayo waa programkan maanta idin shiday badida dadkanu kuma jirin see ayuu ku yimi Amber Alert maxaa ilmaha loogu daari waa wixii loogu daari waa ilmaha Soomaaliyeed oo reer booliska xal markii ninka taliyaha la hadlayay wuu ogaa in ilmahani uu dhintay oo la xadin taas waa loo daari waay anigana cuqdad baa gasho waxaan isiri ilmaha Soomaaliyeed ayaa la cunsureeyay seebakum Amber yaani waalidkan gabadhan Amber hooyadeed markii 1996 ilmaheedii la xaday waxay adduunkii wadankii Mareykanka ku soo kordhisay oo dawladda Mareykanka ku bushkaraysay iyadoo madaxweyne Clinton madaxweyne yahay oo ay geysay codsi ah in alertiga la sameeyo gabadheedana loogu magac daro alertiga baa la sameeyay Amber baana loogu magac daro ila dhageys intiina meesha ku jirto